madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bilaabay qorshe cusub oo ku wajahayo xiisadda saami qaybsiga ee ka taagan gudaha Somaliland kadib markii ay fashilmeen dadaalo uu ku qancinayay madax dhaqameedka. Madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaridka ayaa iyagu ku heshiiyay in xilligan doorashada Somaliland lagu galo saami qaybsigii hore 2005 xilli taas beddelkeeda ay qabaan qaar ka mid ah beelaha Somaliland cabasho. Madaxweyne Biixi ayaa ku howlan qorshahan cusub ee ku wajahayo xiisadda saami qaybsiga oo guux badan ka dhalisay Somaliland, isla markaana uu madaxweynuhu si qasab ah ugu jiirsiinayo beelaha qaadacay doorashada. Madaxweyne Biixi ayaa lagu wadaa in uu maanta dalab culus u gudbiyo maxkamadda dastuuriga ee Somaliland kaasi oo ugu dan leeyahay in ay ayido go'aankii xisbiyada ee ahaa in Somaliland ka dhacdo doorasho lagu saleeyo saami qaybsigii hore. Biixi ayaa qorshahan door biday kadib markii wax natiijo ah ay ka soo bixi weyday kulamo uu la qaatay odayaasha dhaqanka oo isaga iyo xisbiyada mucaaridku ay ku qanciyeen in doorashooyinka lagu galo tiro koob la'aan iyada oo la raacayo saami qaybsigii hore ee doorashada. Inkasta oo si dhab ah aan loo sheegi karin jawaabta maxkamadda sare ee ku aadan dalabka madaxweyne Biixi, haddana waxaa suurtagal ah in ay maxkamaddu ay ka qayb qaadato rabitaanka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka ee arrinta saami qaybsiga. maalmihii u dambeeyay waxa gudaha Somaliland laga dareemay xiisad ka taagan arrinka saami qaybsiga iyadoo ay beelo ka tirsan ay qaadaceen ka qaybgalka doorashada maadaama ay ku doodayaan in aan dhag jalaq loo siinin rabitaankooda ku aadan arrinta saami qaybsiga. Bulshada ayaa goobaha lagu caawiyo iyo meelaha shaaha lagu cabo iyaguna ku faaqidaya heshiiska xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka oo dadka qaar ay sheegayaan in xukuumadda iyo xisbiyadu ku degdegeen heshiiskaas oo ay ahayd in ay la tashadaan beelaha ka cabanaya arrinta saami qaybsiga si doorasho hufan dalka uga dhacdo, taas oo calaamad su'aal gelin karta haddii la qancin waayo beelaha cabanaya in dib u dhac ku iman karto doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka.